xukuumadda oo markaasi rabto inay hirgeliso marqaatiga qarsoon. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومركله iyo Sweden iyo maanta hadii jeer waxaan kugu soo gudbiyaa dhacdooyin markaasi ugu weyn ee ka dhacay dalkan Sweden isla markaasina hadii ay hadleen sharciyo ama markaasi warbixino muhiim ah u baahan tahay inaad ogaato warbixinadan oo hadii jeer quseeyo dhammaan bulshada markaasi ku nool dalkan Sweden. haddaba maanta barnaamijkan waxaan ku soo qaadan doonaa markaasi waxyaabaha markaasi la soo jeediyay isla markaasina la rabo in isbedel lagu sameeyo waxaana kamid ah gaar ahaan lacagaha kaalmada markaasi la siiyo ee waalidiinta markaasi haysto caruurta in markaasi fikir uu wado xisbiga markaasi cunsuriga in lacagaasi la yareeyo gaar ahaan hadii ahaan lahayd lacagaha markaasi postal bidraga hadii ahaan lahayd bomb bidraga markaasi kaalmada caruurta la siiyo iyadoo markaasi sharcigaani dib u eegis ama markaasi inuu hirgalo la horgeyn doono dowladda dhamaadka sanadkan aan ku jirno ee ah 2024 isla markaasina waan arki doonaa hadii uu noqdo markaasi fikirkaasi ama isbedelkaasi in la aqbalo iyo in kale. hay'adda transport steersa ee markaasi qaabilsan xagga gaadiidka ayaa waxa ay soo saartay in markaasi dib u habeyn lagu sameyn doono isla markaasina la joojin doono dadka markaasi haysta ama ka soo qaata wadamada kale ee markaasi ka baxsan Sweden laysanada kuwaasoo isugu jiri karo markaasi laysamo sax ah iyo waliba kuwa markaasi been abuur ah. hay'adda ayaa marka waxay soo jeedisay in marka qofka loo ogolaanayo in laysankaasi loo bedelo looguna bedelo laysan Swedish ah in markaasi qofka ay qasab ku tahay in markaasi uu galo imtixaanka wadista. taasna waxaa markaasi loo sameynayaa maadaama sharciyada wadamooyin kale ee markaasi kala duwan yihiin marka laga hadlayo qaadashada laysanka. xukuumadda oo markaasi rabto inay hirgeliso marqaatiga qarsoon taasoo hadii ay dhacdo in markaasi ay dhacdo dambiyo waaweyn loona baahdo in dambiyadaasi baaritaan lagu sameeyo inay markaasi jiri karto inuu qofka markaasi marqaati ka noqdo isla markaasina isaga aan la ogeyn inuu markaasi kiiskaasi baaritaan lagu sameeyo. sharcigaasna waxaa markaasi la qorsheynayaa in la hirgeliyo sanadka 2025. ugu dambeeyay aan kusoo qaadanay maanta barnaamijkeena waxaa kamid ah marka laga hadlayo dambiyada ay galaan dhalinyarada da'dooda ka hooseyso 18 sano jir in markaasi hadii uu qofka dambi lagu soo helo oo isla markaasina uu xukun ku dhaco aysan kaliya ku ekaan qofka inuu xabsi galo oo xabsiga soo dhameysto kadibna uu ku sii noolaado wadankan Sweden gaar ahaan dadka markaasi haysta dhalashada dalka Sweden isla markaasina ka soo jeedo wadamada kale waxaa markaasi la soo jeediyay in markaasi qofkaasi inuu xabsi galo marka uu xabsigii soo dhameystana markaasi dib loogu celiyo wadanka uu ka soo jeeday oo markaasi lagu sameeyo udvisning. sharcigaanne waxaa markaasi loo arkaa inuu yahay mid badbaado ah maadaama ay suurtagal tahay qofka hadii uu xabsi ka soo baxo inuu markaasi sii bato dilalka iyo waliba maaragtay inuu imaado argoosi. taasna waxay wada xukuumadda inay markaasi la iskugu daro qofka xabsi iyo in wadanka laga saaro. qodobkaasna wuxuu quseeyaa markaasi dhalinyarada ka hooseyso da'da 18 sano ee markaasi gala dambiyada waaweyn. waa ku maasan tahay daawashadaada inta aan muuqaalkiisa ay ku kulmeyno walaalkana cali sulubo idin leh sida iyo nabadgelyo. مع السلامة فلا لايك.